kulan wacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan qaybtii 39aad ee sheekadii la magac baxday la mid ah iyo lur jecel. sheekadani waxaa qalin ku qaatay Alabwaan Ismasi Toosi, waana sheeko xiiso badan, waana sheeko jacayl oo muujinaysa laba gabdhood oo walaalo ah oo hal mar isma jeceladay hal wiil. dabcan sheekada halkaas ayay inagu sii socon doontaa. dhegeysi habboon. qaybtan waxay nooga bilaaban doontaa 39aad laqanyadii bilan iyo laab mugaantii baari ayaa ugu magac darnay qaybtan. oo kaalay walaal maalmahan miyaadan arag baariyare mise islamaba xidhiidhtaanba. bilan oo dhoola caddaynaysa ayay tidhi hay oo waan arkay walaal, xitaa maalin anigoo raba inaan soo barta baari gurigiisa ayaa aabba igu yimi, waanan ka baaqday. bilan markastoo ay istusiso in barni farxad u muujiso waxay dhan u maaxanaysay arrimihii riyada. markaabay guud ahaan hadalku u gunaanadeen walaashiid, waxayna tidhi barniyey yaan wakhtiga kaa lumin ee macsalaama. qadkana way ku jartay bilan. sheekadani waxay gaar u tahay raadiyo barni markay aragtay walaasheed bilan inay wax ka qaldan yihiin ayay iskula hadaaqday. yaah bilan maanta kuma arag sheeko wanaaggii aan isdhaafsan jirnay. tolow ma aqaan waxa qaldan, waanse arki doonaa. bilan markuu wakhtigu gaadhay xilligeedii bareefadka ayay ishabaysay. bilanna waxay isku xaradhay sidii hablaha diyaas baraha oo kale, maadaama gabadhu ay aad u doorbidayso wiilkii dumaashigeeda ahaa inay soo jiidasho ku samayso. markay tagtay iskuulkeedii aad baa loogu dareemay quruxdeeda, waxaanuu qof kasta markaa indhaha ku dhifta bilicda bilan uu dareemayay muuqaalkeeda halacsiga nuurka leh. waxaase ka mid ahaa ustaad baxuux oo damacba ka galay gabadha bilan. waxaanuu yidhi asagoo la kaftamaya bilan, way quruxleyda ii waran. bilan oo aragtay in macallinku damcay ayay ugu soo koobtay hadalka iyadoo qoslaysa. macallinow damacu maanta miyuu iga kaa galay? bal caadis ka dhigoo quruxdaad igu arkayso qof kale maahan. waxaan isku qurxinaya ee waa qalbigayga iyo jacaylkayga oo meeshaan iiga muuqda ayay ugu koobtay. horeyna way u sii carartay iyadoo sii qoslaysa. markii xiisadii ay soo qaadatay dibaddana loo soo baxay ayay mar qura indhaha ku dhifatay wiilkii baari ahaa oo asna maalinkaa u muuqday inuu diyaarsan yahay, welibana labis horay aan loo arag uu kaga shidhnaa wiilasha kale. bilan aragtidii baari waxay ku beertay dareen hor leh, waxayse kari weyday in ay u dhawaaqdo, balse nasiib wanaag asaga ayaa arkay. isla durba wuxuu u soo dhaqaaqay dhankeedii asagoo aad u qoslaya. baariyare xubbiga walwalkiisu wanaag isku doori. dabcan waxaa halkaa nooga dhan qaybtii 39aad ee sheekadii la magac baxday laab mid ah iyo lur jecel. intaynu dib kulmi doono qaybta buuxda ee sheekada ee 40aad waxaan idiin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. fikradda sheekadan waxaa iska leh Alabwaan Ismasi Toosi. fadlan noqo sheekadan qof ka sheekeeya, ha noqonse qof looga sheekeeya. markaad wehelsiisay naftayda wareertay madmihii ku tabaayay korkaad
تيري ويكن ولاعي خيستي دقيقة كواي وقني كتباي كوكا تيري ويكن ولاعي خيستي دقيقة كواي عنده الولاية قلبي هو الهنايو وطنك هو بيدائي ونفسي وذنك بعينها وريت تجفيها ورجعيكو عنده الولاية قلبي هو الهنايو وطنك هو بيدائي ونفسي وذنك بعينها وريت تجفيها